asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhowaada daawadayaal, waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo kanaalkiinii weydiinaya warcelin. muuqaalkan daawadayaal waxaynu kusoo qaadan doonaa 20 su'aalood iyo jawaabahooda oo ku saabsan dagaaladuu galay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. balse daawadayaal, intaynu muuqaalku gadagelin waxaynu kaa codsanaynaa inaad muuqaalka laag saarto, asxaabtana aad u sheergarayso, kanaalkan aad kusoo birto. ana ilaawin daawada inaad ku salliso nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. mahadsanidin. su-aasha koowaad, dagaalkii badar wuxuu dhacay sanadkii 1dii hijriyada, 2dii hijriyada, 3dii hijriyada, 4tii hijriyada. jawaabtu waa 2dii hijriyada. imise qof ayay ahaayeen muslimiinta dagaalkii badar? 313, 500, 700, 1000. jawaabtu waa 313 qof bay ahaayeen. su-aasha saddexaad, dagaalkii badar muslimiintu waxay heleen guul weyn maxaa yeelay? waxay lahaayeen hub badan, waxay ahaayeen tiro badan, ilaahay ayaa u gargaaray oo caawiyey, waxay lahaayeen tababar wanaagsan. jawaabtu waa ilaahay ayaa caawiyey oona u gargaaray. su-aasha afaraad, dagaalkii badar madaxdii ciidanka quraysheed waxaa ahaa abujahal, abu sufyaan, cutba ibnu rabiica, khaalid ibnulwaliid. jawaabta saxdu waa abujahal. su-aasha shanaad, dagaalkii uxud wuxuu dhacay sanadkii 2dii hijriyada, 3dii hijriyada, 4tii hijriyada, 5tii hijriyada. jawaabtu saxdu waa 3dii hijriyada. dagaalkii uxud ciidanka quraysh waxaa hogaaminayay abujahal, abu sufyaan, khaalid ibnulwaliid, cutba ibnu rabiica. jawaabta saxdu waa abu sufyaan. dagaalkii uxud maxaa sababay inay muslimiintu jabaan? tiradooda ayaa yareed, hubla'aan ayay ahaayeen, ciidamada qoriga riddada oo ka tegay meeshii lagu amray inay joogaan, cimilada oo xumaatay. ciidanka qoriga riddada oo ka tegay meeshii lagu amray inay joogaan. dagaalkii uxud nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee waxaa dhaawacay abujahal, khaalid ibnulwaliid, waxshi ibnu xarbi, cutba binu abi waqaas. jawaabtu saxdu waa cutba ibnu abi waqaas. dagaalkii qandaq waxaa kale oo loo yaqaanay dagaalkii badar, dagaalkii axsaab, dagaalkii xunayn, dagaalkii tabuug. jawaabtu saxdu waa dagaalkii axsaab. dagaalkii xunayn wuxuu dhacay kadib markii la furtay magaalada madiina, magaalada maka, khaybar, tabuug. jawaabtu saxdu waa magaalada maka. dagaalkii khaybar muslimiintu waxay la dagaalamayeen quraysh, qabiilada yahuudda, gaaladii madiina, reer thaqiif. jawaabtu waa qabiilada yahuudda. dagaalkii tabuug waxaa lagu yaqaanaa inuu ahaa dagaalkii ugu horreeyey uu galay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee, ugu dambeeyey uu galay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam, ugu fududaa uu galay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee, ugu dheeraa uu galay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee.
waa dagaalkii ugu dambeeyay uu galay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee. dagaalkii qadaq muslimiintu waxay qodeen god si ay uga hortagaan ciidamada quraysh iyo xubnahooda yuhuudda khaybar, reer thaqiif, gaalada madiina. jawaabtu saxdu waa quraysh iyo xulufadeeda. dagaalkii banu qurayza wuxuu dhacay kadib dagaalka beder, uxud, khandaq, xunayn. jawaabtu saxdu waa khandaq. dagaalkii mu'ta muslimiintu waxay la dagaalamayeen gaaladii quraysheed, yuhuudda khaybar, reer thaqiif, ciidamada ruuma. jawaabtu saxdu waa ciidamada rooma. dagaalkii xunayn nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee wuxuu la dagaalamayay qabiilka quraysh, thaqiif iyo hawasaan, banu qurayza, yuhuudda khaybar. jawaabtu saxdu waa thaqiif iyo hawaasin. dagaalkii tabuuk wuxuu ka dhacay magaalada maka, magaalada madiina, waqooyiga carabta, yaman. jawaabtu saxdu waa waqooyiga carabta. meeqa dagaal ayuu galay nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaatee? 23 dagaal, 25 dagaal, 27 dagaal, 28 dagaal. jawaabtu waa 27 dagaal. waxaad sheegtaa saxaabigii calanka muslimiinta hayay dagaalkii uxud. muscab binu cumayr, talxa binu cubaydillaah, saciid binu zayd, anas binu maalik. jawaabtu saxdu waa muscab binu cumayr. waxaad sheegtaa saxaabi arkay malaa'igta dagaalkii uxud. abubakar, cumar, sacad bin abi waqaas, mucaad binu jabal. jawaabtu saxdu waa sacad bin abi waqaas. aad ayaad u mahadsan tahay daawade. haddii aad soo gaartay muuqaalka ilaa iyo intaan, fadlan daawaday waxaan kaa codsanaynaa in aad muuqaalka like saarto, asxaabtana aad u sheergarayso, muuqaalkana aad gaarsiisaan daawadayaal ilaa 10,000 oo like. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.